3 milyan. midkaan kaliya waxaa daawaday 34 milyan oo ujeedid $150,000. sida wada ognahay TikTok wuxuu noqday platformka ugu awoodda badan adduunka, waxaana degsadeen in ka badan 2.6 bilyan oo jeer ayaa la degsaday. taasina waxay ku cadeynaysaa awoodda uu leeyahay TikTok. haddaba muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa 3 qaab aad TikTok lacag ugu samayn karto. kusoo dhawo muuqaalkan. السلام عليكم kusoo dhawaad iyo tahay janaalka markuu guureysay. maanta muuqaalkan waxaan ku qaadan doonaa sidee TikTok lacag ugu samayn kartaa. taasi way fududahay. muuqaalka waxaan ku qaadanaynaa 3 qaab aad TikTok lacag ugu samayn karto. haddaba aan ku bilaawno midka koowaad. midkood wuxuu yahay Creator Fund. haddaba Creator Fund sidee ayaad ugu samayn kartaa? midkaani uma furna qof waliba, wuxuu u furan yahay kaliya dadka jooga wadamada qaar. haddaba aan guda galno. Creator Fund maxaa lagaaga baahan yahay si aad u samayso lacag? Creator Fund number 1 horta waxaa lagaaga baahan yahay in channelkaaga ama TikTokaaga haddii aan fiirino Creator Fund shuruudaha lagaaga baahan yahay maxay tahay si aad lacag u furato. shuruudda koowaad waxay tahay sidaad u jeedid waxaa lagaaga baahan yahay kow in aad ka weyn tahay 18 sano. asal garanaanayna. midka labaad oo ah in aad haysato 10,000 ka badan. 10,000 ka badan sidii loogu helo aad u fududahay TikTok haddii aan fiirino. sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay in channelkaaga ama TikTokaaga 30 maalin u dambeysay inuu helay 100,000 oo views ah. 100,000 oo views TikTok hal maalin ayaa lagu helaa. imise wadan ayaa laga ogol yahay TikTok Creator Fund. haddii aad intaas joogtid waad xareysan kartaa ama waad abaalgaran kartaa. taasina way fududahay. midaasna waxaad ka fiirinaysaa shaashada idin soo saaraya qaabkii aad u furan lahayd markii aad shuruudahaas buuxisid. haddii aad shuruudaha buuxisid waxaa ku kori doontaa TikTok. aan u gudubno qaybta labaad sidee ugu samayn kartaa lacag. midka labaad waxay tahay promote business. inaad TikTok aad ku xayeysiiso businesskaaga ama aad kusoo bandhigto businesskaaga. sidaasna waxaad ku samayn kartaa lacag aad iyo aad u tiro badan. TikTok maanta waxaa ognahay platformka ugu fiican ugu viewska badan, yani inaad dad badan heshid aad ayay u fududahay. marka taasina waxay ku fududeynaysaa in ganacsigaaga uu dhaqaaqo kadibna halkaasi aad lacag badan ka samayso. example hadda haddii aan fiirino TikTok haddii aan galno tusaale ahaan hadeerta haddii aan qorno product haddii aan fiirino tusaale kusoo baxayo inaan soo bixi doono product badan oo halkaas lagu xayeysiina. product aad u jeedid waxaa daawatay 2.9 milyan. waa 3 milyan ku dhow ayaa daawatay. sidoo kale kan 3 milyan ayaa daawatay. sidoo kale 9 milyan ayaa daawatay midkaan. sidoo kale baalkan waxaa daawatay 3 milyan. midkaan kaliya waxaa daawatay 34 milyan oo jeer ayaa la daawaday. dilmaa 34 milyan oo dad ayaa daawatay. waxaana saartay waxaana muuqaal ka heshay 5 milyan oo dad ayaa muuqaal ka helay. marka tusaale haddii aan dhahno calculatorka haddii aadno tusaale 34 milyan dad ciyaar maaha. example haddii dhahna bis kaliya waxaa kasoo raacday 5,000 oo dad bis kasoo raacday. 5,000 oo kaliya waaya, yani meesha ciyaar maaha. 34 milyan oo dad ciyaar ha maleen 5 milyan lag saartay muuqaal. 5,000 oo kaliya yani 1% xitaa ma dhamaata. 5,000 bis daa ku dhufan. hadda example bis ku fureyno productgaasi hadduu ka faa'iidayo tusaale $30 ama $30 haddii la iibinayo example sidaas wuxuu ku haystaa u jeedid $150,000. ciyaar maaha, yani ka badan ama naga soo xorota laga yaabo 34 milyan ciyaar maaha. qofkaas haddii aad fiirisid oo toos haddii sii gelisid haddii aad gudaha usii galno TikTokiisa productgaas linkiisa ayaa saaran meesha. waa kana soo ujeeday linkiya. marka qofka wax kale soo dhigo soo jeed soma product kaliya ayuu ku xaysiiyaa meesha. marka linkiyan qofka raaco si toos ah product ayuu u geynayaa. waa linki oo Amazon ama meel kale uu kusoo qaatay oo affiliate marketing ah. linkigaas isagii website-kiisa yahay laga yaabaa. linkigaasi hadna ku dhifta mar website-kiisa. linkigaas qofkii raaco si toos ayuu alaabtiisa ugu iibsanaa. halkaas lacag badan ayuu ka sameynaa. marka promote your product yana ku xayeysiin TikTok lacag badan ayaad ka sameyn kartaa. aan u gudubno midka kale saddexaad muxuu yahay. midka saddexaad wuxuu yahay coins, yani in aad TikTok live soo gasho maxaa la dhahaa
ciyaar maaha. Coinskana lacag tiro badan ayaad ka sameynaysaa. Tusaale ahaan dirtaan coinska haddii aan fiirino coinska inta lacag laga sameeyo boqolkii coins waa $1 iyo bar iska dheh. Sidoo kale shantii boqol oo coins waa $6. Tusaalaha habeenkii waa aragtay Soomaalideena ka badan soo gashay. 10,000 oo coins waa $134. 10,000 oo coins waa aragtay ka badan dadka loo iibiya. 10,000 oo coins marka haddii aad ku dhufsato naftarkiisa example haddii aad ku dhufsato naftarkiisa 10,000 oo coins xitaa ma aha $134 soo maaha 10,000 oo coins. Marka ma u baahnin kaliya haddii ku dhufano 5,000 oo coins kaliya $66 $64. Okay, haddii ku dhufano 10 jeer kaliya waa $604. Yani 10 maalin kaliya example ka badan Soomaalideena habeen bay soo gashaa sidoo kale dadka way soo galaan live. Marka halkaas live kana lacag tir badan laga sameeyaa. Midkaan kuma xirna meesha aad joogtid iyo wadanka ku nooshaa kuma xirna. Si toos ah lacagtaada waxay ugu soo dhacaysaa PayPal-kaaga. PayPal-kaas toos ay ugu soo gudbinaysaa. Sidaasna waxaad ku sameynaysaa lacag aad iyo aad u tiro badan. Marka waxaan rajeynayaa muuqaalka faa'iideen. Fadlan hadaa muuqaalka faa'iideen lacag saar. Sidoo kale waxaa soo socda muuqaal aad u tiro badan oo aad wax badan ka faa'iidi doonto qaabka internetka lacag loogu sameeyo. Sidoo kale xirfadaha maanta loo baahan yahay adduunka.